shirkan ahmiyad weyn buu noo leeyahay maanta sida hadda la sheegay waxaan soo dhagax dhignay laba mashruuc oo ka fuli doona magaalada Garowe waa 9 kiiloomitir jidada weyn dawladda Puntland toos u maalgelinaysa qaybna bangiga adduunka uu naga caawiyay oo runtii magaalooyinka caasimadaha loogu talagalay laakiin cidda markii labaad ka faa'iideysanaysa ay Garowe noqotay Puntland caasimado badan oo dawladaha xubnaha ka dawladda aysan wali fursadan aysan ka faa'iideysan waxa u sahlay Puntland maamulka muddada dheer soo jiray ee dawliga ah oo runtii hay'adihii howlahaas ka shaqeyn lahaayeen ay u dhameystiran yihiin 22 sano kadib Puntland waxay cagta saaraysaa in ay dawladnimadeedii ay dhameystirto iyadoo haddana u dareertay nidaamkii xisbiyada badnaa oo runtii dadka reer Puntland aysan u kala harin si gaarna ugu mahadcelinayo madaxweynihii hore Puntland oo markii horena waqti badan geliyay haddana wali u taagan sidii mashaariicdaas u hirgelin lahaayeen waxaan rabaa inaan halkaan uga hadalno in Garowe caasimad noqoto waa go'aan bulshada reer Puntland ay gaareen go'aan reer Garowe ay gaareen ma aha waa go'aan reer Puntland gaareen inay caasimadoodii ay noqoto dawladdoodii ay dhisteen ayaa maanta sharafta iyo maqaamka ay leedahay gaarsiiyay waxay noqotay xarun reer Puntland waxay u socotaa xarun Soomaaliyeed inay noqoto sidaas ay u noqoto kuma socon karto qorshe la'aan marka waxay u baahan tahay qorshe dawladeed iyo mid dadweyne oo iskaashanaya sida sharcigu yahay maanta mawduucan wuxuu aad ugu saabsan yahay qorsheynta dhulka caasimadda sidii looga faa'iideysan lahaa iyo sidii loo horumarin lahaa sida qawaaniintu ay dhigayaan dhulka oo dhan dawladda leh macnaha wuxuu ka imaanayaa dhulka oo dhan dadka wada leh mar hadday dadku wada leeyihiin dalka dawladda baa matali karta qof walba wuxuu ka leeyahay wixii dawladdu uga ogolaato oo ku manaafacadsanayo sharcigu noo qoran iyo midka mandiqa ah sidaas weeye waxaan u baahannahay marka ummad meel isugu timid haddaan nahay oo rabta inay sida adduunka u nool yahay u noolaato waxaan u baahannahay inaan qorshe u samaysano sida qof walba gurigiisa uu qorshaha ugu samaysto waxaan u baahannahay deegaankeenna baahiyihiisa qofku markuu gurigiisa dhisanayo wuxuu ka dhisaa wax walba u baahnaa qolalka jiifka meeshii cuntada lagu karsan lahaa meeshii loo xaajo tagi lahaa meeshii la fariisan lahaa meeshii ku nasan lahaa kama duwana magaalooyinka marka la qorsheynayo sidaas oo kale baahiyaha ay magaalo u baahan tahay in loo qorsheeyo u baahan tahay suuqyada waxay u baahan tahay jidad waxay u baahnaanaysaa dhulka danaha caamka ah iskuullay u baahan tahay meel lagu sida gurigaaga waa ugu samaysanaysa meel la fariisto lagu neecawsado ayay u baahan tahay magaaladuna meel la farfariisto iyo meel loo dalxiisto waxaan u baahannahay marka dabcan magaalo kasta oo Puntland waxay leedahay golo deegaan oo loogu talagalay horumarinta deegaanka inay ka shaqeyso iyo magaalooyinka waxa caasimadda u dheer xeer caasimadeed bay leedahay oo gaar iyada u ah maadaama ay tahay meeshii xaruntii dawladda oo qiimaha ay yeelanayso waxa hadda aad u maqnaa dhulka la isku leynayaa qiimo u leeyahay waxa qiimaha u yeelay waa xaruntii dawladda weey haddii dawladdu meelay degto la waayo qiimaha hadda la maleynayo culumo iyo cuqaal iyo dawladda oo wada jira maxaa yeelay arrinta noocan ah waxay u baahan tahay iskaashi ballaaran maxaa yeelay aafay noqoto waxaa kale oo iyadana muhiim ah waxyaabaha ay abuurayaan
dadka dembiyada hubaysan oo abaabulan u galaya dhulalka inay sii fuliyaan dembiyo kale oo kuwaa ka badan marka ay lacag aan qorshaysnayn helaan waxaad ogtihiin waxaa badanaya drugski waxaa badanaya fasaadka kaleeto waxaa badanaya dembiyada iyo dilalka marka waxaan u baahannahay arrimaha noocaasa in aan ka hortagno waxaan rajaynayaa inaan wakhti badan anigu aan qaadan marka hore inaan dhagaysano degmada iyo qorshaheeda sida ay u samaynayso master plankeeda si ay ugu tala gashay magaaladan waxaan ka rabnaa xarumo dawladeed iyo xarumo caam ah keliya kama rabnay qorshayaasha hadda ku jira waxa weeye in la helo xarumo dhaqaale waxa weeye meelo loogu talagalay warshadaha industrial areas waxaa la rabaa dadkani muxuu ku noolaanaya meel wax kala soo baxa duu waayo waxaan u baahannahay in la qorsheeyo meelaha deegaanka u dhow ee beeraha noqon karta oo sharciyo fiican loo sameeyo oo deegaanka ku habboon iyo meelo wax soo saar ka soo baxo oo ah dhinaca warshadaha iyo horumar kaleeto waxaa la wadaa qorshayaal lagu ballaarinaya korontada oo lagu jebinayo waxaa jira qorshayaal biyaha magaalada biyo wanaagsan oo ballaaran lagu keenayo waxaa jira mashaariic loogu horumarinayo jidadkeeda waxaan rabnaa inaan hadda kadib u gudubno deegaanada cusub in ay ahaadaan deegaano qorshaysan oo loo qorsheeyo dhammaan maraafiqda markaan dhagaysano degmada waxaan dhagaysan doonaa tiam injineero ah oo hadda gacanta ku haya mashruuc sidaasoo kaleeta oo xagga degaamaynta ah oo magaalooyin kale laga samaynayo iyo habraacyada dawladdu ugu tala gashay wasaaradda howlaha guud ay gacanteeda ku disha rabta waxaan dawlad u noqonnay inaan dadka xun gacanta ka qabanno taas sharciga ayaa lagu heshiiyey ayaa dhigaya dawladda puntland waxaan u dhaaranay bulshada inaan shaqeyno shaqada aan leenahay oo sharciga ku dhisanna waxaan diyaar u nahay inaan fulino ciddii ka hor timaadana sharciga la tiigsano waxaan marka maanta rabaa inaan isla garanno inta aynan dabcan in badan oo garanaysa oo nagala shaqaysa way jiraan laakiin waxaa aada u soo badanayo shirkaan u qabannay wacyigii inuu hoos u dhacayo waxaa kaloo yaab leh magaalooyinkeennu waxay u baahan yihiin dad waxay u baahan yihiin population maxaa yeelay hantida la gelinayo oo ah ama hoteellada la dhisayo ama serviceka kale ee laga samay wuxuu noo sheegay daa'iyadana dhulka iyo sida la rabo in looga manaafacaasanayo iyo qaabka la rabo in database-ka la isugu xiro dhammaan dadka dhulalka ku leh hadday noqon lahayd nootayooyinka hadday noqon lahayd wasaaradda dawladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha hadday noqon lahayd wasaaradda maaliyadda si loola socdo bogcad kasta oo dhulkan ku taalla iyo sida ay hadhowti loo wada qorshayn doono insha allah iyadana waxaad ogaan doontaan wakhtiga la geliyey iyo sida ay isugu xidho iyadoo halbeegyo loo samaynayo midabaysan ayaan rabnaa in magaalooyinkan meelaha hadda dhiman ee magaalada u fidaysana lagu asteeyo marka aan dhagaysano macluumaadkooda iyo sida dawladdu ay jeceshahay inay magaalooyinka u maamusho oo aan rajaynaya wacyigaas marku uu kobco in dadka waxgaradkaana aan fursad siin doonno guddiyada hadda ku howlan khilaafaadka dhulka ka yimaadana aan xal ka gaari doonno waxaan rajaynayaa khilaaf kasta oo dhul ku saabsan inaan si dhow usoo afjarno cid kasta oo xaq u leh dhul ay iyadu leedahayna dhulkeeda marka loo ogolaado inay yeelato dhulka ka baxsanna dawladdu inay yeelato waxaan kale oo rabaa inaan dhulalka dawladdu ay leedahay iyo kuwa hadda ay astayn doonto waxaan uga digayaa dadka xun ee raba inay dhulka dawladdu ku fidaan inay ka waantoobaan waxaan kaloo rajaynayaa in cuqaasha iyo dawladduba ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo hantida ummadda ka dhexaysa maxaa yeelay dhulku dawladdu leedahay waa hanti ummadda ka dhexaysa dad qofna si gaara uguma takrifali karo waxaan kaloo iyadana aan rajaynayaa dadka dawladda u shaqeeya iyo hay-adaha u shaqeeya ee mashaariicda beenta ah dawladda dhulka uga dalbanayo oo markay xeertaan ayaaba kadib dhul ay leeyihiin oo kale ka dhigaya iyadana sharciyo adag baa laga soo baxaya wixii lagu qaato dan dadweyne weligay dan dadweyne noqon doontaa wax la dhaxlan noqon doonto waxaan u rajaynayaa culummadu mararka qaarkood inay ku baraarugaan arrintaas waxaa mararka qaarkood dhici karta qof hay-ado lacag uu ka soo qaaday intuu ku dhisto inuu u haysto inuu isagu leeyahay wixii hay-adi keento bulshada iskale
waa dan caam ah isaga maamulkeeda ayay hay-addaasi leedahay laakiin waa hanti dadweyne oo weliba maamulkeeda markii raba laga wareejin karo marka waxaan u baahannahay nidaamka dawliga ah inaan u sii dhowaano ee aynu noqon dad nidaamka dawliga ka sii fogaada maxaa yeelay haddii qof walba qabiil lagu xeeriyo waxaan ku noqonaynaa nidaamkii badaa'iga ahaa oo dambe haddayna dawlad noqonna intaanu dada meel kuma wada hayn karno waxay noqonaysaa inaan dadka miyigii u kala dirno nidhaahno nin walba meel bannaan oo aan lagaa soo gaari karin isaga noolow haddaan dadkii meel isugu keenno magaalooyin isugu keenno waa inay xeerarka iyo shuruucda magaalooyinku ay shaqeeyaan marka waxaan rajaynayaa kulankan oo aan rajaynaya inuu daah furnaado wacyigelin noo noqdo shaqadana noo sahlo inta ku howlan oo ah dhaqanka iyo dawladda iyo maxkamadahaba annaga dhexdeenna dawlad ahaan waxaan inii ballan qaadaynaa wax khaldan hadday jiraan inaan sixi doono waan ogahay dabcan siyaasadda dawladdu waa very clear laakiin dabcan dawladdu dadka u shaqeeya khaladaad waa ka imaan karaa wax badanna hadda dabagal baan ku haynaa cid kasta oo khalad ku caddaato ay bulshada ka gelaysana waxaan rajaynayaa inay maamulkan kusii dhex jirin oo ay ka dhex baxdo oo ay uga bax saasaan rajaynaya culummo iyo cuqaal iyo dawladda oo wada jira maxaa yeelay arrinta noocan ah waxay u baahan tahay iskaashi ballaaran maxaa yeelay aafay noqoto waxaa kaloo iyadana muhim ah waxyaabaha ay abuurayaan dadka dembiyada hubaysan oo abaabulan u gelaya dhulalka inay sii fuliyaan dembiyo kale oo kuwaa ka badan marka ay lacag aan qorshaysnayn helaan waxaad og tihiin waxaa badanaya drugskii waxaa badanaya fasaadka kaleeto waxaa badanaya dembiyada iyo dilalka marka waxaan u baahannahay arrimaha noocaasa in aan ka hortagno waxaan rajaynayaa inaan wakhti badan anigu aan qaadan marka hore inaan dhegaysanno degmada iyo qorshaheeda sida ay u samaynayso master plankeeda si ay ugu tala gashay magaaladan waxaan ka rabnaa xarumo dawladeed iyo xarumo caam ah keliya kama rabnay qorshayaasha hadda ku jira waxa weeye in la helo xarumo dhaqaale waxa weeye meelo loogu talagalay warshadaha industrial areas waxaa la rabaa dadkani muxuu ku noolaanaya meel wax kala soo baxa duu waayo waxaan u baahannahay in la qorsheeyo meelaha deegaanka u dhow ee beeraha noqon karta oo sharciyo fiican loo sameeyo oo deegaanka ku habboon iyo meelo wax soo saar ka soo baxo oo ah dhinaca warshadaha iyo horumar kaleeto waxaa la wadaa qorshayaal lagu ballaarinaya korontada oo lagu jebinayo waxaa jira qorshayaal biyaha magaalada biyo wanaagsan oo ballaaran lagu keenayo waxaa jira mashaariic loogu horumarinayo jidadkeeda waxaan rabnaa inaan hadda kadib u gudubno deegaanada cusub in ay ahaadaan deegaano qorshaysan oo loo qorsheeyo dhammaan maraafiqda markaan dhegaysanno degmada waxaan dhegaysan doonnaa tiam injineero ah oo hadda gacanta ku haya mashruuc sidaasoo kaleeta oo xagga degaamaynta ah oo magaalooyin kale laga samaynayo iyo habraacyada dawladdu ugu tala gashay wasaaradda howlaha guud wuxuu noo sheegay daa'iyadana dhulka iyo sida la rabo in looga manaafacaasanayo iyo qaabka la rabo in database-ka la isugu xiro dhammaan dadka dhulalka ku leh hadday noqon lahayd nootayooyinka hadday noqon lahayd wasaaradda dawladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha hadday noqon lahayd wasaaradda maaliyadda si loola socdo bogcad kasta oo dhulkan ku taalla iyo sida ay hadhowti loo wada qorshayn doono insha allah iyadana waxaad ogaan doontaan wakhtiga la geliyey iyo sida ay isugu xidho iyadoo halbeegyo loo samaynayo midabaysan ayaan rabnaa in magaalooyinkan meelaha hadda dhiman ee magaalada u fidaysana lagu asteeyo marka aan dhegaysanno macluumaadkooda iyo sida dawladdu ay jeceshahay inay magaalooyinka u maamusho oo aan rajaynaya wacyigaas marku uu kobco in dadka waxgaradkaana aan fursad siin doonno guddiyada hadda ku howlan khilaafaadka dhulka ka yimaadana aan xal ka gaari doonno waxaan rajaynayaa khilaaf kasta oo dhul ku saabsan inaan si dhow usoo afjarno cid kasta oo xaq u leh dhul ay iyadu leedahayna dhulkeeda marka loo ogolaado inay yeelato dhulka ka baxsanna dawladdu inay yeelato waxaan kale oo rabaa inaan dhulalka dawladdu ay leedahay iyo kuwa hadda ay astayn doonto waxaan uga digayaa dadka xun ee raba inay dhulka dawladdu ku fidaan
inay ka waantoobaan. waxaan kaloo rajaynayaa in cuqaasha iyo dawladduba ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo hantida ummadda ka dhaxaysa. maxaa yeelay dhulku dawladdu leedahay waa hanti ummadda ka dhaxaysa, dad qofna si gaara uguma takrifali karo. waxaan kaloo iyadana aan rajaynayaa dadka dawladda u shaqeeya iyo hay-adaha u shaqeeya ee mashaariicda beenta ah dawladda dhulka uga dalbanayo oo markay xeertaan ayaaba kadib dhul ay leeyihiin oo kale ka dhigaya. iyadana sharciyo adag baa laga soo baxaya. wixii lagu qaato dan dadweyne weligeed dan dadweyne noqon doontaa, wax la dhaxlan noqon doonto. waxaan u rajaynayaa culummadu mararka qaarkood inay ku baraarugaan arrintaas. waxaa mararka qaarkood dhici karta qof hay-ado lacag uu ka soo qaaday intuu ku dhisto inuu u haysto inuu isagu leeyahay. wixii hay-adi keento bulshada iskale, waa dan caam ah. isaga maamulkeeda ayay hay-addaasi leedahay, laakiin waa hanti dadweyne oo weliba maamulkeeda markii raba laga wareejin karo. marka waxaan u baahannahay nidaamka dawliga ah inaan u sii dhowaanno ee aynu noqon dad nidaamka dawliga ka sii fogaada. maxaa yeelay haddii qof walba qabiil lagu xeeriyo waxaan ku noqonaynaa nidaamkii badaa'iga ahaa oo dambe. haddaynan dawlad noqonna intaanoo dada meel kuma wada hayn karno. waxay noqonaysaa inaan dadka miyigii u kala dirno nidhaahno nin walba meel bannaan oo aan lagaa soo gaari karin isaga noolow. haddaan dadkii meel isugu keenno, magaalooyin isugu keenno, waa inay xeerarka iyo shuruucda magaalooyinku ay shaqeeyaan. marka waxaan rajaynayaa kulankan oo aan rajaynaya inuu daah furnaado, wacyigelin noo noqdo, shaqadana noo sahlo inta ku howlan oo ah dhaqanka iyo dawladda iyo maxkamadahaba. annaga dhexdeenna dawlad ahaan waxaan inii ballan qaadaynaa wax khaldan hadday jiraan inaan sixi doono. waan ogahay dabcan siyaasadda dawladdu waa very clear, laakiin dabcan dawladdu dadka u shaqeeya khaladaad waa ka imaan karaa. wax badanna hadda dabagal baan ku haynaa. cid kasta oo khalad ku caddaato ay bulshada ka gelaysana waxaan rajaynayaa inay maamulkan kusii dhex jirin oo ay ka dhex baxdo oo ay uga bax. saasaan rajaynaya. waxaan u baahannahay inaan si midaysan isu qaban. maxaa yeelay waxa laga wada shaqaynaya waa danta aan wada leenahay. nin walba dantiisa gaarka ah laguma haysto. nin walba dantiisa gaarka ah isagaa qabsanaya, laakiin danta caamka aan wada leenahay inaan wada ilaashanno aan u baahannahay. waxaan runtii ka codsanayaa dhaqanka oo islaan ciise uu maanta u weyn yahay deegaanadan in arrimaha noocaasa anoo og culayska inay saaran, laakiin arrimaha dhulka magaalada Garowe waxay u baahan tahay in ahmiyadda koowaad la siiyo. maxaa yeelay waxaa ku jira jiritaankeen inaan dawlad ahaano ayaa saldhig u ah inay caasimaddu qorshe fiican ay yeelato. haddaysan yeelanin mustaqbalkeennaa khatar jirto. marka waxaan rajaynayaa haweenka iyo dhallinyarada iyo odayada iyo dawladduba arrimaha dhulka ku saabsan iyo qorshayntooda inaan ka wada shaqayno si aan u helno magaalo bilicsan oo xasilan oo la maamuli karo oo u sahlanaata dawladdu inay sida laga rabay arrimaheeda u gudato. aad baad u mahadsantihiin. waxyaabo badan way ku ammaanan tahay magaaladan runtii oo dadku qabsadeen. maxaa yeelay markii magaalooyinkii la qaxay dadkii aan fiicnayn oo iyagu isqabanin magaalooyinkii jidadkii magaalada bili lahay oo dhan baa la dhistay. magaalada Garowe waxay aad ugu mahadsan tahay dadkii ka soo shaqeeyey inay tahay magaalooyinka dhinaca jidadka ugu wanaagsan Soomaaliya markii la fiiriyay. maxaa yeelay wixii kaleeto waxay noqdeen meel aad loogu habsaday. taa waa laga leeyahay. laakiin haddii intii magaaladii hore la ilaaliyey magaaladii markii la baxana isku raran ay noqoto maxay macno yeelanaysaa? maxaa macno yeelanaysa? meeshii magaalada u fidaysay haddii si aan qorshaysnayn loo wada degay. maxaa yeelay magaalada la xifdiyey waa magaalo dawlad ay dhisaan garaysay. magaaladii dawladda dhisaan garaysay ayaa dadku ilaaliyey. laakiin dad iyagu intay meelo iska xeerteen siday rabeen dhulka u jarjareen oo dadkii isdhexgeliyeen oo iska hor keeneen waa adag tahay. waxay ku noqonaysaa sida hadda magaalooyinka qaybtood dhib naga haysta oo Boosaaso ugu muhiimsan tahay oo ay nagu kallifayso inaan dib u duminno iyo qardho iyo waxaa hadda ugu badan oo mashaariicdan nagu kallif inaan hoos u fiirino daadadkii qardho ka dhacay. waxaan rabnaa inaan meelo dhisan inaan duduminaa rabnaa. maxaa yeelay dad togagii baa la dhistay. halka ruuxadeeda waxaa la sheegay meelo togaga oo la dhistay, laakiin waxaan u baahannahay dadku inuusan noqon dad aan dantiisa ka shaqaynin, dawladduna aysan noqon dad ku fiirsada. marka haddaan annaga dawladdii aan mas-uul ahay maanta waxaa inay caddaynayaa inaan arrimahaas ahmiyad weyn siinayno oo aanan ogolayn inay magaaladan annaga oo joogna ay jid xun ay qaato. waxaan aad uga digayaa haddii la isqabto bini aadan meel la isugu yimid baaye annagu ma odhanayna laysma qaban karo.
waxaan aada uga digayaa gacanka hadalka iyo in hub la isku urursado wax aad afkaaga ku dhacsan kartid haddaa xaq leedahay inaad hadaysid maxaa kuu diiday waxaan anaa le muceeb bay kugu tahay ya waa la kala garbaxaya xeer beegti baan leenahay maxkamadaan leenahay sabab aa ugu dagaalantid ma jirto waad ogtihiinoo marka la dagaalamo wax la kala dilo dhulkii intaan laga hadlin dhiiggaa laga hadla soo saas maa marka dhulkii waxba umuu tarin dagaalka aa gashay qadiyad sideeda u taagan bay noqotay marka waxaan rajaynayaa arrinta ku saabsan gacanka hadalka iyo hubaysnaantu waxaanan jeclaan lahaa oo aan hadda ka codsanayaa haddii cid dhul ku xadgudbaysa ciidamada puntland ay tagaanay dad ku dilaan islaan ciise aweyl odayaasha dhaqankana waa u jeedaaye waa halkay joogaane yaa noolagu imaan haddaan dowladda nahay ciddii ku dhimata sharci darro ciddii sharci darro ku dhimata iyadaa isdhigtay meeshaas cidaan kala xaajoon doonana ma jirto waxyaabo horaa jira oon ka wada hadalno ciddii ciidanku uu ku dilo iyaga oo hubaysan oo ciidanka weeraraya dabcan ciidan aadi maayo ilaa laga soo sheego khatar ciidan hubaysan inuu meeshaa joogo taliyaha booliiskana waa maqlaaya laba qolaa isku haysata ciidan qoryo wata inay iska aadaan maaha laakiin haddii la arko in dad hubaysan ay dhul haystaan oo ay sharci darro ku haystaan oo ay leeyihin noolama imaan karo dowladdu tallaabay ka qaadi doontaa waxaan rajaynayaa arrimahaas inayna soo noqnoqon ceeb bay nagu tahay waxaan aad wakhtiga oo kulul laakiin maanta loo kala kici maayo waxaan rabnaa halkaas inaan tala midaysan uga tirno haddii ilaahay